جزاك الله خير خير الجزاء. سؤال أفراد شيخ سائل كان وحول لي waxaan rabaa inaan ku weydiiyo arrin maalmahan aan ku wareeray waxaan ku noolahay wadamada reer galbeedka ciidii fitriga waa la kala ciiday oo khilaaf baa dhacay inta badan maraakiista Soomaalidu waxay ciideen maalinkii Axadda ayagoo ku cileeyay in ay Sacuudiga ku xidhan yihiin oo aysan shaqo ku lahayn meel kasta oo bisha laga arko maraakiista Soomaalida ana sida aan ognahay maradiyan bil oo waxii Sacuudigu sheego ayay ku go'aan arrintaas diintu maxay ka qabtaa in khalad iyo saxba qofku uu daba taagnaado dawlad gaar ah ayadoo cilada laga dhigayo ikhtilaaful mataalic baa jira Sacuudiga waxa noogu jaan go'an salaadaha ayaa noogu jaan go'an oo isku madlac ma aha Sacuudiga iyo Kenya iyo Soomaaliya ikhtilaaful mataalic maxaa loola jeedaa bismillah waa su'aal dheer oo sharax gooni u baahan kamana gaadho inta uun muhiimadan ka raacaya insha Allah taala waxa la yiraahdo ikhtilaaful mataalic waa wax iska dhib badan oo fuqahadu isku maandhaafeen oo dhib badan weeye ikhtilaafku waa kala duwanaansho iyo kala duwani weeye laba shay kala duwan yihiin mataalicduna waa jamcu matlac waxaan loo jeedaa ama matlac waxa tiraadaba waxa laga wadaa matalicu ash-shams wal qamar matalicu ash-shams wal qamar wixii qorraxdu isku mar u soo baxdana waa isku matlac wixii kala duwanna waa kala matlac waxaad sheegtaba qamarku iyo xidigu xataa kawaakibtu waa la mid marka inahaas laga wadaa xagga marka loo soo laabto soonka soon in aragteen lagu soomo aragteen lagu afuro mas'ala ijmaaciya been ahli ilmi wal muslimiin adilla badanna waa ku timid dibku wuxuu ka jiraa kaliya maadaama muslimiinta ay baaheen oo meelo badan la kala joogo oo aan la wada joogin dawlado fara badan oo konton iyo dhowr ah muslimiinta xataa ay wadamo gaala tageen oo la burburay qaabkii loo soomi lahaa ee soonkooda loo midayn lahaa baa dhib badan ka jira madaahib dhowr marka ilaa 5 lagu soo ururiyo marka la isku celceliyo lagana badin karo ayaa meesha ku jira sawaabkuna waxa weeye sida roon haday sugnaato meel walba adduunka aad ka joogtid cilifka adduunka iyo dacaladiisa bari iyo galbeed koonfur iyo waqooyi meesha joogtaba jooge haday sugnaato ay ku sugnaato ku qanacdo maanta inay ramadaan tahay oo aragti dad lagu kalsoon yahay lagu soo sheego inaad soontaa wanaagsan maxaa yeelay waxyaabahan kale waa siyaasad kama marno kala qayban muslimiin kama marno khilaaf fiqi oo dhib badan kama marno adugu marka meel walba ay sugnaato bishi maanta in laga arko inaad ku soontaa kuuna wanaagsan iyadoo sidaa tahay muslimiinta kale kula dagaalamin waa mas'ala khilaafiya khilaaf saa'iq baa ku jira barkeed waa masaa'il ijtihaadi waliba daqiiq ah culumadu fahmi karaan marka waxbana ku sii xad gudbin adugu laakiin sida kuu roon waxa weeye inta maalin ramadaana uu ku dhaafi lahaa oo muslimiinta qaarkood arkeen oo ku seegi lahaa maalinka ayada soon muslimiintana raac waxa marka reer Sacuudi iyo reer Hebel waxa ku mashquulin bariyahan damar waxa soo kordhayba waago waxaan moodi jiray dawladaha qaarkood sida Sacuudiga oo kale in waqti ay ku bixiyaan bisha aragtideeda oo ay rooyo aad u raadiyaan laakiin waayahan dambe waxa qalbiga ku soo kordhaya in sida Turkiga oo kale ayaguna ay falag iyo xisaab iyo manazil eegideeda ay ku soobaan oo rooyo badan aysan jirin waxyaabo soo kordhaya hasa aatee sayiduna waxaan noqotay muslimiintu meel walba bisha ka arkaan ay sugnaatana ku sunta ku wanaagsan iyadoo haddana marka la eego xagga sayniska la fiiriyo cilmi ma aha muslimiinta lagu qaybiyo aragtida cilmi ma aha maxaa yeelay wixii khatu tuul wada dhacay waxaana waan dhihi jiray dhig iyo lool baa la oran jiray khutuutu tuulku waxa weeye waa 360 180 dhinac dhacda oo sharqi ah iyo 180 غربي أوي خط الطول وحي دعو دنبا waxa way waa isku aragti dhanka galbeed wixii ka dhanna waa isku aragti marka dad yar oo muslimiina iskhilaafaya خطوط العرضنا iyagu waa 180 bay kala yihiin meesha kuwa duulka ay kala yihiin 180 adduunka dhan de masaafadiisa waxa dhan waa 360 waa iska khuduud wahmiyo oo wax lagu xisaabsado oo qolyahan ay wax ku xisaabsadaan khadka garinisha ingiriiska lagu salbeys gareeyay
macno badan kuma sii xidhno muslimna hadda wuxuu fahmi karo caamo xukun loogu xikara ma ahe waxa wanaagsan maalinkii ay sugnaato ogaato in bishii la arkay kuwa aad ku qanacdo ku soo wadaadaha aad sheegteen ee sacuudi wax noogu xidhan yidhina waa hawl siyaasadeed hawl diineed ma aha wallahu aclam